ku soo dhawaada qoraalada mucashiqiinta. gabar ayaa tiktokeeda ku soo qortay muxuu tarayaa jiritaankayga adiga la'aantaada, waayo haddii aan adiga kaa fogaado waa anigoo nafsadeyda ka fogaaday oo kale. gabar ayaa waxa ay soo qortay dadka waa sida in ay sugayaan inta aad ka jeclaanayso si ay u jibiyaan qalbigaaga. wiil ayaa isagana yiri aniga jaceylka waxaan u aqaanaa marka la saxo 100 qalad oo aad adiga gashay walina lagula joogo oo aan laga fogaanin. gabar ayaa soo qortay horta ma ogtihiin in qofka aadka u neceb ekisyadeena in ay tahay saaxiibadeena aadka noogu dhow. gabar aad u xanaaqsan ayaa soo qortay waxaad dad badan isaga indhitirtay hal qof dartiisa, hadda isfiiri oo halka aad joogtid. wiil ayaa soo qoray sabab maxaad ii siisay ciqaabtani, sabab la'aan maxaad ii siisay riyo haddana iiga qaadatay daqiiqad walbo aan noolahay aniga waxaan dareemaa ciqaab in aan ku noolahay. gabar ayaa commenti ku soo qortay malaayiin qalbi ayaa dunidani ka jirto, saas ay tahayne qalbigaaga ayuu doortay in uu jibiyo, taasina waa dareen gaar ah. wiil ayaa soo qoray marka uusan ninka ragga uu rabin inuu ka hadlo dareenkiisa uuna la kulmo gabar rabto in ay ogaato shay walba uu isaga ku saabsan iyo wax walba oo isaga ku fikirayo maxaa ka qurux badan. gabar ayaa soo qortay bal sabiro in ay familkaaga ka aqbaleen in aad guursato jecelkaaga qofka uu yahay, laakiin aad weydo adigane qof adiga ku jecel. wiil ayaa gabar uu jecel yahay ku yiri jecel in lagu qaado waa shayga labaad ugu khatarta badan adduunkani, halka shayga koowaadi uu yahay in adiga lagu helo. wiil ayaa soo qoray ma ogaanin waxa uu yahay jaceylka dhabta ah ilaa aan anigu dareemay uuna iga soo booqday jaceylka. gabar ayaa soo qortay adduunka jaceylka ugu xun waa in aad jeceshahay qof maalintiisa oo dhan iska socdo asagoona kula soo hadlin. wiil ayaa gabar u soo qoray qayb ka mid ah quruxdaada waa qaabka aad ula hadasho dadka iyo qaabka aad dadka ula dhaqanto marka aad xanaaqsan tahay. gabar ayaa waxa ay soo qortay waxaad tahay sababta aan mar walba moobilkayga u jeeggareeyo anigoo sugayo wicitaankaaga. wiil ayaa isagana gabdho u soo qoray waxaan ahay doob weyn laakiin ha ilaabina in aan waqti iska kiin lumineenin. qof aan la aqoonin ayaa isagana soo qoray shay walba oo qurux badan dadku waxa ay jecel yihiin in ay burburiyaan, hadda adigana waad qurux badan tahay anigana waxaan ka baqayaa in lagu burburiyo. qof kaloo la aqoonin ayaa isagana yiri labadeena jaceylka qaabab kala duwan ayaan ugu guuldareysanay, waxaad ku guuldareysatay in aad i jeclaato mana aragtid sida aan kuu daryeelo xitaa iimana xariisatid marka aan aad kuugu baahanahay imana dooratid xitaa aniga haddaan ku doorto mar koowaad mar labaad ilaa iyo marka 100aad. anna waxaan ku guuldareystay in aan adiga ku naco xitaa xanuun walba markaad imarsiisay oo aan dartaana u ilmeeyey waan ku nici waayey. waxaan nafteyda u sheegay in ay iska kaa nacdo laakiin qalbigaygu waa uu iga maqli waayey midaasi. waxaan kuu jeclaaday si bilaa xuduud ah, xitaa markaad iga tagto waan ku sii jeclaadaa, markaad iska kee indhatirtana waa niyajabaa, waxaana niyadda gashtaa in aad ii soo laabanayso, taasina waa sida aan ugu guuldareystay jaceylkaaga. waad i dhaawacdaa, saas ay tahayna markaan duceysanayo magacaaga ayaan ku duceystaa. labadeena hadda waan ku guuldareysanay jaceylka walow aniga guuldaradeedu tahay tan ugu xun, maxaa yeelay weli waxaan jeclahay qof iska kee ilaaway sidii anigu inaan ahay qof aana jirin oo kale. qof kale oo aan la garanaynin ayaa isagana waxa uu soo qoray waxaa jiro shay jirkayga ku jiro kaasi oo adiga kuu xiiso, laakiin waxaa jiro shay kale kaasi oo ii sheega aniga in aad adigu maskaxdaada iga saartay haddana aanan ahayn qofkaaga. gabar ayaa tiri dhoola cadeen walboo qurux badan waxaa ka dambeyso murugo qaraar badan, taasi oo aanan cidina arkeenin aanan dareemeynin. gabar ayaa soo qortay mar hore ayaan aqbalay wax walba laakiin sabab maxaan u dareemayaa weli xanuunka. wiil ayaa soo qoray waxa ay nolosheeda raadinaysay ma waxa nabadda iyo xasiloonida iyo jaceylka aan hadda ka helay baa. gabar ayaa soo qortay caafimaadkayga maalinba maalinta ka dambeyso waa uu sii xumaanayaa, waxaan u maleynayaa qof ayaa ku duceysanaya geerideyda. wiil
ayaa soo qoray, ma kuu sheegaa xanuunka ugu weyn adduunka? Waa marka beddelka in indhahaaga ay ooyi lahaayeen uu ooyo qalbigaaga. Gabar ayaa soo qortay, isaga qalbigayga ayuu qaatay, haddana sidii dhagaxii oo kale waa uu iska tuuray. Wiil ayaa isagana soo qoray, dareenka adduunka ugu xun waa marka aad jeceshahay qof, isagana qof kale jecel, aad adiguna rabin in aad isdhiibto oo aad rabto jaceylkaasi in aad xoog ku keensato. Gabar ayaa soo qortay, waxaan bilaabay in aan jaceylka isku dhiibo markaan adiga ku arkay, sidoo kalena waxaan bilaabay dartaa in aan u burburo. Wiil ayaa isagana soo qoray, haddii aan kuu sheego waxa qalbigayga uu adiga kaa rabo, mar walbo indhahaaga meel kale ma fiirin doonaan oo aniga ayay isoo fiirin doonaan. Gabar ayaa soo qortay, qalbigayga ayaa ii sheegay sida uu u garaacmayay adiga inaad tahay jaceylkayga, anigana aan adiga keliya ku rabo. Wiil ayaa soo qoray, ma aqaano waxa sax iyo waxa qalad ah, fadlan adiga kaalay oo ii kala sheeg waxa saxa ah iyo waxa qaladka ah. Gabar ayaa soo qortay, sabab maxaad iiga cabsanaysaa? Marnaba aniga qalbigaaga ma jibin dooni, mana kaa tegi dooni, haddii aad rabtana itijaabi maalin un. Wiil ayaa isagana soo qoray, aniga ma hayo awood badan oo aan ku dhooro xiriirkeena, haddii aad rabto adiga waad burburin kartaa, waadna iska bixi kartaa. Haddii aad halkaan inala soo gaartay waad ku mahadsan tahay, fadlan isku day inaad asxaabtaada kale la wadaagto muuqaalkeena maanta.